degdeg inay ku soo jawaabi doonaan. madaxweynaha kale waxaan u malaynayaa inuu madaxweynihii dhibaatadu haysatay yahay, isagu hadal uma baahnayn in wax loo qabto maalintaas oo loo gudmudan buu sugay. arrintaas markaan intaas xaqiijinay isla maalintaasna waxaan sameynay arrintii aqalka ku saabsaneyd oo sidaan aqalka dhaqaale kaga aruuri lahayd degdega ahayd. Soomaalidu waxay yidhaahdaan waxaan nooleyn kuma nooleeya. waxaan nidhi annaga waa tiro yar nahay, laakiin inaan gurmad isu dheeli tiran samayno ayaan isku taxallujinay oo aan xaruuhay wixii suuragala. waxaan nidhi aan marka reerka waxba looga tegin, waxaan u qaybinay, waxaan nidhi mararka qaar sadaqada waa la yaboohaa, maxaad bixi kartaa ha layidhaha. ayaan dhowey sidaan oo kale markii isla fatahaaddan oo kale ay ahayd, mase abaartii ahayd, abaartii waa tii lacagta aan isku qoray, qaaraa 5 kun baxshay, qaaraa 3 kun baxshay, qaaraa 1 kun baxshay, qaaraa qofba awoodeeday bixisay. waxaa layidhi hadda armay ka habboon tahay inaan inta nidhaahdo intaas aan bixino aan intaas qaybsano si wixii wax ku ool ay u noqdaan. waxaan qiimeynay lacag 50 kuna inaan kaga qayb galno gurmadka ugu horeeya, 50 kun oo dollar. lacagti marka sidii lagu heli lahay ayaan dadka u qaybinay, aan sanatarada u qaybinay iyo xafiiska iyo xubno gaara intaba. waxaan nidhi 54 sanatar min 500 oo saf mara horta waa laga rabaa. waxay noqotay 54 lagu dhuftay 27 kun. aqalka madaxdiisa oo 3 guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeenna min 1 ayaan iyagana ku qorannay. waxaan xafiiska aqalka ku qornay waan islahayn iyagana kolley inba waxba meelaha ay qarashaadkooda waxaa ka soo jarjaraano lacag 13 kuna. waxaan ku qorray 4 oday oon islahayn xisaabtii markaa 48 kun noqotay aan ku buuxinay oo min 500 ku qornay ayagana. waxaan guddiyada ruuxooda oo waxaawahay waxyaroo gurnaa ayagana ay ku shaqeeyaan heela, waxaan nidhi ayaga ruuxooda lagama hari karo min 500, 10 guddiyaan min 500 ku qoray. marka waa 10 guddi oo min 500 oo 5 kuna, 4taas oday oo aan xisaabta ku buuxino 2 kuna, 3 kun oo guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigaan, xafiiska guddoonka xafiiska golaha oo 13 kuna iyo 54 sanatar oo min 500 oo 27 kun. lacagta isu geynteedu waa 50 kun. waxaa maanta loo fadhiyaa halkan inaad marka hore aqbashaan, kadibna aad isla halka aad fadhisaan aad ku bixisaan, anoo og in qaybo badan oo adinka kamida ay already bixiyeen. haddana ciddii hartay ayaan rabnaa inay maanta naga dhammaato qadiyadaas, oo beriba aan guddiga abaaraha guddiga fatahaadda loo saaray lagula biiro, oo guddi aqalka sare ka socda sida aan ku ballansanayn ay kula biiraan, ama ay toos u aadaan. labadaba way samayn karaan, oo gurmadka ciddii rabtaana toosay u aadaa, oo madaxweynaha iyo ciddi ka looga shaqaynaysa ay la abaari karaan. haddaan doonana waxaan kula biiri karnaa guddiga heer qaranaan kula biiri karnaa. marka kolley waa laga tashan doonaa madaxda iyo guddoonka iyo guddiga ayaa dib uun u fiiri doona qaabka loo guddoonsiin doono. marka faalo dheero intaas ka baxsan ma rabo inaan sheego. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaana idinka rajaynaa inaad aqbali doontaan. guddiga joogtada waa soo aqbalay. aad iyo aad ugu mahadsantihiin.